Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa walaalkiin Xuseen haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir waa kusoo dhaweynaynaa haddaad hore noola joogtana sii faafisi walaalahaada oo u gaaro waxaan horey uga soo hadalnay cashirkii koowaad ee buugga Ebrowanka waxaan bilaabeynaa cashirkeenii labaad ee buugga Ebrowanka markaas soo dhawaada waxaan ku dhex jirnay ilaa su-aalihii aan ku dhex jirnaa weli marka qaybtan waxa waaye waa isla su-aalihii adaa lagaa rabaa inaad ka jawaabtid oo qortid si xoogaa practice ay kugu noqoto marka iyagun leer maalin wanaagsan waxaan rabaa halkaa inaad ku qortid qaybtan oo igulama waxa waaye practice inaan practice ku samaysid aadine magacaa aadim cali marka waxaan rabaa iyadan inaad qortid wax kala samaysid intaana soo guurinayn sidaan soo qoraysa halkaan ku qoraysa ama buuggaa ku qoranaysaa ama halkaan buugga meesha uga tala ku qoran kartaa qaybta ku xigta saddexaad sinin adine magacaa benim adim faadima magacayga waa faadima soo qor marka waxaan rabaa si gacantaada ula qabsato inaad samaysid practice aad ku samaysid memnun oldum barasho wanaagsan bende memnun oldum sidoo kale barasho wanaagsan qaybtana soo qor hay qaybtan ku xigta wasla su-aalihii weli dilaynis dhegeyso fee tamam lines dhegeysiga dhammaystir marka qaybtan waxa way qaybo yar ka maqan laakiin adiga buuxinaya marka qofku wuxuu yiriyaa qofka kale wuxuu yiriyaa lagu sheegaa qof kale wuxuu yiri ayaa laga rabaa hay cali meeshan waxaa ka maqan gunler bisa ku taala meesha wixii ka maqan ayaa laga rabaa sahra waxay dhahday iyo gunler ay ku jawaabtay marka cali muxuu dhahaa marka meeshan maxaa ka maqan marka waa naqaana iyo gunler qofka inta ku jawaabay qofkan kale gunler ku qoran meeshan maxaa gali lahaa waa ka soconaynaa cali wuxuu yiri adine magacaa sahra waxay ku jawaabtay sinin adine adiga magacaa marka sahra maxay ku jawaabtay su-aalay bixisay sahra intaysa bilaaban ka hor maxaa sahra ka horeeya meeshan maxaa sahra maxaa ka horeeya adaa laga rabaa cali wuxuu ku jawaabay benim adim cali magacii waa cali memnun oldum ayay dhahday sahra hay cali muxuu dhahaa marka dee maxaa ka horeeya hore aan soo marnay dee waxaa ka horeeya maxay yihiin meeshan maxaa gelaya hore aan soo marnay memnun oldum qofku duu ku raado maxaa la dhihi jiray halkan maxaa gelaya adaa laga rabaa waa ka soconaynaa waxaan dhan waxaa u soo qaadan oo dhan marka waxaa la yiri number 1 benim adim magacayga xaga ku aadaya marka ma a ku aadaya ma b ku aadaya ma c ku aadaya sidin adiga magacaaga ma waash sheeg sidin ayaa la yiri midii ku aadaysa meeshan ka raadi memnun oldum memnun bis waaye meesha midii ku aadayso saddexdan ka dooro marka waa ka soconaynaa waxaan gelinayaa qaybtan kunusmaa waxa way wada sheekaysi diila uu sheekada oo ku Yunus akhri ayaa lagu sheekada akhri Ahmed iyo Salma ayaa sheekaysanaya Ahmed wuxuu yiri gunaydin subax wanaagsan Salma waxay dhahday gunaydin subax wanaagsan Ahmed wuxuu yiri adinisne magacaa Salma waxay dhahday adim Salma magaciigu waa Salma sisin adinisne adiga magacaa marka qaybtan sisin adinisneedan Soomaana arkin adinistan iyo adinistan way nagu cusub tahay magacaana way tahay tii hore sinin ayaan soo marnay maxay kaga duwan yihiin qaybtan tan waxa weeye waxa loo isticmaali karaa qofka jamac ayaa loo isticmaalaa qof kaligiis oo xushmeynaysan waa loo isticmaalaa marka dad badan hadaa dhaysa magaciin waxa dhici karta sisin adinisne hadda qof aad xushmeynaysid qofka weyn ama qof waalid ama qof macallin aad dhayso kala qof aad xushmeynayso kalena oo isticmaali kartaa marka labada nooc waa loo isticmaalaa sisin adinisne hadda Ahmed wuxuu u isticmaalaa Salma si qof xushmad ahaan ayuu u isticmaalaa marka wuxuu yiri sisin adinisne magacaa hay Ahmed wuxuu yiri benim adim Ahmed ayuu yiri magacii waa Ahmed memnun oldum barasho wanaagsan Salma waxay dhahday bende memnun oldum ana sidoo kale barasho wanaagsan Ahmed sheekada bilaa wuxuu yiri gunaydin subax wanaagsan Salma waxay dhahday gunaydin subax wanaagsan qofka duu subax wanaagsan ku raadiyana subax wanaagsan aad leedahay Ahmed wuxuu yiri adinisne waxa uu isticmaalay eraygan adinisne wuxuu xushmeynaya adinisne magacaa Salma waxay dhahday adim Salma magacii waa Salma sisin adinisne ayaan si xushmad ay u dhahday magacaa Ahmed wuxuu yiri benim adim Ahmed magaciigu waa Ahmed memnun oldum barasho wanaagsan Salma waxay dhahday bende memnun oldum anigana sidoo kale barasho wanaagsan marka waxa la yiri qaybtan benser dialoglar kronus qaybahan isku eg ayaa lagu yiri meeshan ku arkaynaa marka waxa la yiri diila uu tamam laan sheekada dhamaystir marka sheekadan waa wixii aan soo marnay la wiri qaybta waxa rabaa inuu practice kugu siiyo si aad ay kugu fududaato inaad fahantahay in kale marka iyagun la qofku dukuraad maxaad dhahay wixii aad halkaas ku qor
haddii qofku yidhaahdo iyo gunleer waxaa dhihi lahayd iyo gunleer maalin wanaagsan waxaad dhihi lahayd halkan ku qor marka waxay dhihi lahayd horaan usoo marnay iyo gunleer qofku dukura waxaa dhahaysa hore usoo marnay lambar a laguma siinba adaa lagaa rabaa inaad meeshaan gelisid jawaabtan qofka b wuxuu ku jawaabay benim adim sehraa magacaygu waa sahro sisin aadinisne adigana magacaa sisin aadinisne adigana magacaa marka qofkan benim adim sehra intuusan ku jawaabin kahor jawaabtan uu baxshay su-aashii la weydiiyey maxay ahayd su-aashii la weydiiyey adaa lagaa rabaa marka waan ka soconaynaa waxaa la yidhi qofkan waxaa la yidhi marka sahra waxay dhahday sisin aadinisne magacaa jawaabta uu qofkaanu bixiyey maxay tahay marka jawaabta uu bixiyey maadaama sahra ay sin aadinine dhahday magacaa sisin aadinisne hadday sahra dhahda magacaa qofkan jawaabta uu baxshay adaa lagaa rabaa marka inaad sheegtid hayaqo lambar laba waxaa la yidhi jumleeri kendenise dilinise jefrinis marka waxaa la yidhi jumleeri waa jumlado waa ercarabi waaye kendi waxa waye nafs ahaan dilinise waxa waaye luuqadaada dilinise waxa waaye luuqadaada afkaaga hooyo haddana soomaali haddaan haya luuqadeena waa af soomaali jefrinisna waxa waaye ku turjun marka waxaa la yidhi kuwaan luuqadaada hooyo jumladahan luuqadaada hooyo ku turjun merxaba maxaa soomaali lagu dhahaa merxaba maxaa soomaali lagu dhahaa kunaydin maxaa af soomaali lagu dhahaa mimnan olodum maxaa af soomaali lagu dhahaa iyo gunleer maxaa af soomaali lagu dhahaa iyo akshamlaar maxaa af soomaali lagu dhahaa adinne maxaa af soomaali lagu dhahaa iyo gajaleer maxaa af soomaali lagu dhahaa benim adim ali maxaa af soomaali lagu dhahaa marka intaan waxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inaad soomaaliyeysid oo af soomaali aad ka dhigtid qaybta labaad ilaa dhinaca kale ee bogga kale ee bogga fiiri isla boggaan ku guda jirnaa waxaa la yidhi dilbilgisi marka sharciga ku jira boggan waxaa waaye naxwiga ku jira halkan ka bilaabanaya dilbilgisi ayaa la yidhahdaa dilbilgisi marka dilbilgisi maxaa waaye macnihiisu waxaa waaye naxwe ama grammar waxaa la yidhi alfabeeto waxaa waaye alfabeeto turk jeede ayaa lagu yidhi medukus haraf fardir luqada turk waxay leedahay 29 xaraf waa xarafka caadiga fardir ayay leedahay marka 29 xaraf ayay leedahay kujog haraf leer oo xarfaha yaryar kujog haraf leer waxa waaye xarfaha yaryar kujog waxa waaye yar small ka dhigan tahay haraf leerna waxa waaye xarfo marka hore xarf ahayd bis hadda waa haraf leer jamac ayaa laga dhigaa marka kujog haraf leer xarfaha yaryar marka saan u qoranta waxa la yiraahdaa kujog haraf leer waa small letters ka dhigan tahay tan waxa waaye biyug haraf leer ka soo horjeedkeedu waa biyug iyo kujog way iska soo horjeedaan kujog yar biyug weyn marka waxa biyug haraf leer waa capital letters alfaabeetada akhriskeeda hore ayaan soo marnay waxa hadda soo biximeyno haraf leer ayaa la yiri ikiya ayrilir waxa la yiri xarfaha turkiga ama alfaabeetada turkiga laba ayaa loo kala qaybsadaa xarfaha ayaa laba loo kala qaybiyaa harf leer ikiya ayrilir ikiya waxa waaye labo ayrilir ayaa loo kala saaraa ama loo kala qaybiyaa harf leer waxa waaye xarfaha marka waxa waaye number 2 waxa waaye seesli harf leer waxa waaye waxa la yiraahdaa shaqal seesli harf leer marka xarafka sees kaliya waxay tahay waa hadal sees kaliya waxa waaye waxa dhawaaqa leh ayaa waxa la yiraahdaa sees li markii lagu daro leh waa marka arki doonaa insha Allah gadaal ku arki doonaa seesli hadii la yiraahdo marka qaar xigta cod leh ama hadal leh ama dhawaaq leh marka ay seesli noqon doontaa tan waxa waaye seesis marka kan waxa waaye labadan markii seesli cod leh seesis aan cod lahayn waa marka seesis aan cod lahayn marka seesis harf leer waxa waaye shibane marka seesis markaana seesis dilira waxa waaye waa shibane seesis waxa waaye shibane seesis harf leer dilira marka waxa waaye shibane harfa aan dhawaaqin marka waxa waaye seesis harf leer shibane seesli harf leer shaqal seesli harf leer shaqal seesis harf leer shibane qaybtan fiir marka shahiis samir leeri waxa waaye shahiis waxa waaye shaqsi samir leeri waxa waaye pronoun magacuyaal samir leeri waxa waaye magacuyaal shahiis waxa waaye shaqsi marka waxa la turku jeeday luqadda turkiga alti taane shahiis samiri fardir luqadda turkiga waxay leedahay 6 xabo oo taane waxa waaye xabo oo arki doonaa markii waxa la kiileynay iyo wax xirmo iyo markii la tilmaamayo sida taane xabo marka taane ay isticmaal doonaa shahiis waxa waaye shaqsi samiri waxa waaye magacuyaal fardir leh marka bunlar waa kuwan marka la yiro bunlar waa kuwan waxa waaye kuwan teekil waxa waaye keli waxa ama singular jaul waxa waaye jamac ama plural ama waxa lagu dhahaa jamac Soomaali waxa lagu dhahaa wadar teekil waxa waaye wadar Soomaali waxa lagu dhahaa teekil Soomaali waxa lagu dhahaa wadar iyo waaxid wadar teekil keli waa keli Soomaali waxa waaye keli tan waxa waaye wadar marka waxa la baan ergan marka waxa lagu dhawaaqa soo qoray oo dhawaaq kartaa baan waa dhihi kartaa
meesha eedaana a waa ka dhigi kartaa baan ayaa dhigi kartaa baan labada waa lagu dhawaaqaa inaad dhahdid si u qoran u dhawaaqdo been inaad dhahdid iyo inaad meeshaas eeda a ka dhigto baan aad dhahdo baan iyo inaad si u qoran u dhawaaqdo been dhahdid labada waa samayn kartaa xarafkan ku xiga baan marka waxa waaye aniga baan aniga saan waxa waaye adiga xarafkaasna sidoo kale waa inuu si u qoran u dhawaaqdid oo saan aad dhahdid iyo inaad meeshaas eeda aad ka dhigtid meeshaas eeda inaad ka dhigtid a oo dhahdid saan saan inaad ka dhigtid labada waa awoodaa kan ku xiga waxaa la yidhahdaa oo waxaa loo isticmaalaa asaga ama ayada qaybta marka kelikelida maxaa waaye baan waa aniga saan waa adiga oo waa isaga mar kale ku celin waxaa baan waa aniga saan waa adiga oo waa isaga ama iyada marka xal oo waxaa loo isticmaalaa wixii gabadh qof kaa maqan oo marka gabar haweeney ah oo waa isticmaali kartaa ninka oo isticmaali kartaa asna oo kaa maqan marka ka sheekeynayso ninka wixii xayawaanada kale oo isticmaali kartaa ingiriis ahaan he she iyo it saddexda oo la isla isticmaalaa waa arki doonaa marka qaab marka la isticmaalayo waxyaabo ay kula duwan yihiin jiraan hay qaybtan waxaa la yiri jamaca biis maxaa waaye inaga siis maxaa waaye adinka online maxaa waaye iyaga biis waa inaga siis waa adinka siis marka adinka waxaa kaloo loo isticmaalaa siis qofka marka adiga aad dhehayso qofka dad xushmeynayso oo qof adiga aad xushmayso oo yahana siis waa dhihi kartaa online waxa waaye iyaga marka biis inaga siis adinka ama adiga online iyaga marka aan ku xilaa qaybta kelikelida baan aniga saan adiga oo isaga ama iyada biis inaga siis adinka online iyaga hay qaybtan waxa waaye yeelig waxa waaye lahaansho ekileeri waxa waaye gadaalgale ekileeri waxa waaye gadaalgale erga wax badan arki doonaa ekileeri waxa waaye gadaalgale wax kastoo shay gadaal ka sii gala waa xaraf ama noon haado ama ficilha gadaal lagu dar wax la yiraahdo ekileeri ayaa la yiraahdaa yeelin waxa waaye lahaansho marka waxa waaye baan aniga waaye saan adiga oo isaga biis inaga siis adinka online iyaga marka benim waxa waaye yeelig benim waxa waaye lahaansho yeelig maxaa ka timid benim waxa waaye yeelig waa yeeligta waxa waaye waa benim sinin marka benim waxa uu xiga sinin waxaada oo nun wixiisa ama waxeeda bizim waxeena sin wixiina online waxooda marka intaan waxa waaye 6 xabo oo lahaanshaha waa yeelig waay gadaalga egleerin waxa ah qaybtan dambe waxa waaye gadaalgale markaad waxa aad sheeganayso eriga aad leedahay aniga iskala marka aad dhehaysa ayaa gadaal lagu sii daraa waa marka kan waxa waaye in macnaheedu isna waxa waaye egleeri gadaalgale waasina aad waa magaciyo kaliya hore hadda buug hore u soo marnay adim marka dhayno kale magaciyo kale hore u soo marnay marka aad kaligeed aada iyo deeda kaliya waxay tahay waa magac tan waxa waaye gadaalgale binimtan waxa waaye lahaanshihii yeelig hayo maxaa waaye egleeri gadaalgalihii imis maxaa waaye gadaalgalihii oo egleeri waaye inis waxa waaye gadaalgari egleeridii waaye laari maxaa waaye gadaalgalihii kuwaana maxay yihiin intaana maxay tahay 6 xabo waxa waaye yeelig markaan ku celinaa maxaa waaye benim waxayga sinin waxaada onun wixiisa ama waxeeda bizim waxeena sisin wixiina online waxooda marka qaybtan halkaan ayaan soo gabagabeynaa dhammaantiin waa mahadsantiin casharkii xig wuxuu noqon doonaa cashir qoraal ah oo qaybtan noqon doona insha Allah qaybtan si fiican u faahfaahin doona sida gadaalgalaha loo sameeyo igleeriga sida loo sameeyo gadaalgalaha loo sameeyo ayaan baran doonaa dhammaantiin waa mahadsantiin